السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal in casharkeena waxa ku saabsan yahay sidii aad ku jeegrin lahayd ama aad ku hubin lahayd DV lottery aad apply gareysay sanadkan marka si aan u jeegrin oo aan u hubino waxyaabo waxa jira hota requirements ah ama muhiim ah in la xifdiyo la iskaga baahan yahay marka inta la gaarin bal horta website-ka aan galno marka hore okay marka website-ka DV Lottery 2026 Google-ka halkaan aad ku qoraysaa si aad u ogaato website-ka saxda ah hadii aad masaxda ku haysidna waxaad gelinaysaa website-ka qaybtaas kore aad gelin kartaa marka website-ka waa kaas waa dvprogram.state.gov waad ku dhufanaysaa okay markaad ku dhufato marka website-ka gudaha ayuu ku geyn doonaa marka website kale waxaa jira oo fake ah laakiin kan saxda ah waxaad ku garan kartaa dvprogram.state.gov ayaa ku qoran sidaan ayaa ku qoran midka saxda ah marka okay marka waxyaabaha requirements-ka waxyaabaha la iska rabo oo muhiimka ah markaad apply gareyso laga rabo inaad xifdisid waxaa kamid ah confirmation number-ka okay marka si aad u jeegareyso hadhowdii haduu Ilaahna gaarsiiyo halkaan ayaad ku dhufan doontaa intaanan ku dhufan xogaha wax yaran waxa iskaga sheegaynaa hadda dadka sanadkan apply gareeyay goormay jeegreyn karaan ama goormay hubin karaan xilliga jeegreynta waxay tahay dadka sanadkan apply gareeyay waxay jeegreyn karaan haduu Ilaahayna gaarsiiyo sanadka soo socda 2025 May 3 ay jeegreyn karaan xilligaas ay bilaabanaysaa jeegreynta dadka sanadkan apply gareeyay waa okay marka si aad u jeegareyso hadhowdii waxa sameyn doontaa waxaad ku dhufanaysaa check status ay leedahay waad ku dhufanaysaa okay markaad ku dhufatid marka wuxuu ku keen doonaa ama uu ku keeni doonaa meelaha form yar oo loogu talagalay inaad ku buuxiso confirmation yani barnaamijyo muhiim ah okay marka continue leedahay continue marka dhahdii marka wixii formkii soo saari doonaa okay marka maxaa laga rabaa inaad xifdisid oo maskaxda aad ku haysid number 1 waxaa laga rabaa confirmation number-ka halkaan ayaa la gelin doonaa okay maxaa kale oo laga rabaa inaad xifdisid horta number 1 waxaa waa confirmation number-ka inaad xifdisid 2 last family name magaca abowahada oo kale magaca u dambeeya tusaale Xasan Ali Isxaaq oo kale hadii aad tiraahdo waxaa laga rabaa marka Isaaq inaad xusuusnatid sida aad u qortayna waa inaad halkaan ugu qortaa hadii ay wax kale si kale u qortid hadii tusaale Isaaq oo kale English ahaan aad u qortay Isaac ayaad u qortay halkaan waxaad u gelisay si khaldan oo ah tusaale af Soomaali ahaan aad u gelisay Isaaq aad dhahday muku yeelay qarad waay muku shaqeynaa marka waxaa laga rabaa sida aad u soo gelisay marka soo buuxinaysay lottery-ga sidaad u soo gelisay isla sidii magacii last name-ka inaad halkaan hadhowdii aad u geliso halkaas okay maxaa kale oo laga rabaa oo muhiim ah number 3 waxaa laga rabaa year of birth xilliga aad dhalatay had tusaale waxaa soo gelisay oo kale 2000 ama waxaa soo gelisay oo kale 1998 aad soo gelisay wixii aad soo gelisay halkaas inaad halkaan aad geliso markaad buuxinaysa xilliga aad dhalatay waa soo gelisay Soomaan waxa soo gelisay tusaale 1999 ka soo gelisay ama 2000 aad soo gelisay waxa marka kaas laga rabaa halkaan aad gelinaysaa kadib authentication kan qoraalkan number-kan aad gelinaysaa marka tusaale confirmation number-ka sidoo ogyahay confirmation number-ka wuxuu ogyahay sidan oo kale tusaale confirmation number-kan waa 2025 oo kale dadkii apply gareeyay waa tusaale okay copy leedahay best leedahay hadhowdii confirmation number saan u ekaanaya marka haduu confirmation number-ka haduu saxsan yahay waa khalad soo qoraayo oo waxa waaye si sax ah yani waa macnaha sidaan u soo qoraya sidaan u soo baxaya had tusaale fiiri haduu waa khaldina 2026 ta ka dhigno maadaama de apply xilligaas confirmation number-ka aan la gaarin sidaan ka dhigo hadda halkaan oo wuxuu soo qori doonaa waa invalid confirmation number-ka waa qaldan yahay soo qor confirmation number-ka sababta maxay tahay sababta waxa waaye xilliga la jeegreyn lahaa dadka hadda apply gareeyay sanadkan waa 2026 ka wali lama gaarin apply xilligii jeegreyntiisa sida daraadeed marka wuxuu soo qorayaa invalid okay wasla faanintaas deen marka dhamaysid sida saxda marka u geliso tusaale 2025 hadii aan geliyo waa dadka sanadkii hore apply gareeyay waa 2025 ka hadii aan geliyo oo halkaan aan saaro check waa kaas wuu ogolaanaya wuu qaadanaya hadhowdina sidaan amal u qaadan doonaa haduu Ilaahna gaarsiiyo sanadka soo socda May 3
2025 ka kadib last name halkaan aad gelinaysaa then xilliga dhalatay year of birth ka kadib qoraalu ku soo saari doona halkaan authentication kan isbedelayaan kuwan mar walba sidaan ma ahaanayaan characters kan isbedelayaan waad buuxinaysaa kadib waxa leedahay submit markaad dhahdid marka hadhowdii wuxuu ku soo saari doonaa form haddii aad ku guuleystay wuxuu ku oran doonaa you have been selected waa lagu doortay wixii process marka macluumaad kale ayuu ku soo saari doonaa haddii aadan ku guuleysanna wuxuu ku soo qori doonaa you have not been selected laguma dooran ayuu ku soo qori doonaa marka qaabkaasa loo jeegaleeyaa marka hadda waxyaabaha laga rabo muhiimka ah waxay tahay kaliya inaad saddexdan aad xifdisid confirmation numberkaada inaad meel fiican aad ku save garayso sidoo kale last family name-ka inaad xusuusnaatid aad meel fiican aad ku save garayso sidoo kale year of birth xilliga dhalashadaada inaad meel fiican aad ku save garayso saddexdan laga rabaa marka waa muhiim marka waa la fahmaa malaynayaa okay muuqaalka casharka la garay insha Allah waa inoo qaybta xigta ama mar kale cashar kale ayaa noo balana insha Allah isma dhaafin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.